aadan yahay iyo kaalintiisa shacab maanta iyo dhalinyaro iyo isboorti iyo maanta shaqo la'aan iyo intaan deegaankii shalay markaan ka soo degay xagga ilaa iyo halkan ka soo gaaray wallahi waa imeynay waxaan dareemay runtii dalka iyo deegaanada aan soo aragnay iyo annagu xaaladii marxaladda aan ku sugannahay anigu waxaan idin leeyahay la'aantiin waxaan samayn kara ma jiraan cidna horar kumaahi cidna weerar kumaahi laakiin ilaahay ummadda Soomaaliyeed marka uu abuuray nin walba dal iyo deegaan uu haysiiyay ilaahay dalka meesha uu makariyay ixtiraamaadka lahaa qabaa'ilka Soomaaliyeed nooc walba lahaa sida la isu soo dhaweynayay sida la isu ixtiraamayay sida nidaamkii gabdhaha loo kala guursanayay hadii xumaan wax dhacaan maartay dadkii sida loo kala xalinayay ahlul xalli wal aqdi dadkii ahaabatihiin maanta inaad tiraahdo Suudaan oo deegaanka waa timid soo dhawow kaalintaadii baan rabnaa wixii aad maanta noo qaban lahayd ilaahay hortii waa idin ballan qaadaya wixii anigu ma dhahayo siyaasi halkan taagan 4 sano hal lagu doorto maahi dadka maanta dhigayga oo intaas oo garbahayga haday yiraahdaan hawshaas ayaa inaga dhiman gobasheedii inaan dhigo degteedii inaan raariciyo wixii aan ka qaban lahayna ficil ahaan inaan ula nimaado marka arrimahaas inta ay in ka badan kulamo yar u martay gaar ahaan iyo kulan guud waan qaban doonaa hadii ilaahay raali ka dhigo codkanaga madaxweynaha maanta waxa inala jooga madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed codkeena waa gaarsiinaynaa shacabkii dadkii meteli lahaa ee turjumayaanu nahay aan leenahay inta iyo intaas baa inaga dhiman inta way noo qabsoontay intana way noo qabiyo waxaan gaarsiinaynaa madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay hadii aanu nahay reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaaladeedii magaala xeebeedeeda magaala xadaarada intaynay maanta ay ka liidato khudbada madaxweynaha maanta lafta gareena waa ku jirtay keligii inta eray la yiraahdo khudba la yiraahdo idaacad qaada maaha taas kaliya maaha ficilkeedii baa la rabaa madaxweynuhu wuxuu u baahan in lagu garab istaago mas'uuliyadiisii dadku mas'uulka yahay waa annaga dadka shacabka hoose gabadha maanta uu raacday inta dheeriile iyo maartay gaarin Maringubaay cusbitaalkii halkan lagu daweyn lahaa qallimada ku helay inaan halkan ka helo cudurrada yar-yarka oo maartay waxyaabaha yarka halkan lagu daweyn karo inaan halkan aan ku heli karno muuqaalka magaala xeebeed ah inaan maanta heli karno annaga ayaa isku duubnideena sida annagu aan isugu talagalno bashariyadeena qof walba cimriga maanta adeerkeena waxa inoogu weyn nabadoonkii sare ama ugaaskii sidoo sheegay 83 sano waxaan u soo joogay hadii maanta la yiraahdo noo taariikhay ma koobi karno inteenaan cimri nagu filan marka daayarta laga reebo waxa inoo haray fursadaha dhiman inaan ubadka kuwa dhalay iyo kuwa dhali doona inaan maartay dhaxaltooyo inaan u reebno qalbiga la isu furo qof walba kaalinta uu ku aadan yahay uu qabto guulaha basharkuna wax kala maaha hadii laakiin isla hadalno oo kala hadalno waxba ma gaarayno marka waxaan leenahay kani waa inoo bilow hadal kaliya maaha waa daba dhigaynaa haday hay'ad tahay hadii dawlad ay tahay hadii shakhsiyaadka kale xaq iyo xurmada u leh halkan dhaxaltooyadooda halkan aan u jeedo sida ugu burbursan yihiin saaka salaas wax markaan tukanay halkan ay istaagay guryaha anu mid u garanayo sida ugu burbursan yihiin ragoodina meel ay ku nool yihiin ubadka ay ku korinayaan baa oga inay dhisaano dib u soo noqdaan ubadkan la keeno bani aadan ninba dhulkiisa asaga sameeyay keen waa sameeysanayna ilaahi ma arkin wixii khilaaf inoo dhaxeeyana odayaasha waxaan dhihi lahaa xigmada ha la isticmaalo qof walbana ha loo cudur daaro laakiin wixii xaq ah in la yiraahdo sidan ayaa anagu ahayn oo ilaahay naga dhigay sidaas ayaanu ma aragtay wax ku noqonay sidaas aan ku wada shaqeynaa faa'adi kullu dii haqqin haqqahu wayno dhalanaysa jazakumullahu khayr wa ku sharfantihiin salaada intaana tukano inta kale odayaasha waa la inoo maqan yahay xogaa marka insha Allah maamus baa jiro waa mahadsantiin insha Allah jazakumullahu khayr